الله الرحمن الرحيم. أنا أوجهها نافذة عروضة يبرك عياش أوروبا وين قرن الصومالية هي بتوميها نافذة السوداء بصيرة هي ما توح بوقشة ونمت جور دجنات المدة كاران أو مقعد اللي يراهو أبشرة أحمد اللي يراهو أو نلاقي الشيء إنه أول مرة ورا نافذة هاي أو حدنا جرب ككلوري تلوت نافذة كأهل دوت تيجي عليه كلوري تجربتي أو مدة 4 سنة سريرة أركيسان وحلاقة قاعدة قد كان أركيسان كسحرانة يستكو كادنا يست قوة قاعدنا يست سريرة نعدين كانوا سيدات أودت وحا مركان مقالنا إسكدينا إنا أو إمانو سئان معناها عد اللاري عدي أو أخوة كتا نوع أركان سيدا مقالنا إيو أركان مركا تاكي أو 4 وفيشو شن إلى 20 waxaan ka yeelanay inaan soo booqano ayadana aan wareysano ay warkeeda sidii ay dhibaatada waqtiga soo gaartay iyo waqtigii ay maxnaha ay fariisatay iyo inta kale ay fadhido iyo waxa ay u baahan tahay in loo qabto ay u gaarsiiso bulshada Soomaaliyeed iyo intii walaalaheeda ayaa abshiro soo dhawow waa gabadhan Basiiro Axmed waaye oo gudoomiyaha naafada ee Sowdo anigana maxaa lahaa waa gudoomo waxaan kala ururka haweenka qaranka xogayaha naafada daryeelka naafada iyo caruurta iyo barakacayaasha ahay hay salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh hay maxaa goorma dhaawacan ku gaaray oo naafa u bahay oo la naafa ahay aysan micnaa qof كنت وقتي قلعت الجبل هاي مقة جاسة بسرعة جاسة القوة بس هاي حقك مقة كشوا محمد الله تبارك عليه هاي ضد تبدأ أوباهن هاي ضد كي جانا وحومه هستان أو وحجرب يسيو تبدأ وحقي بيتيان ويا فرش ويا هاي مقة وكل واحد عيسى أن تضع كذا ويا حق تقال مثلا هاي وحنا مسلمين تنافس إيد من دم إيد وحنا عشان هنا رجال المسلمين يفديان ولا دولة مدحوينها يوقف حلوان يوقف جزيرة وضع كل مدن الصومالية كثارن تاي حلقة وقت جيل تطور شيء ومدنا نافذة هاي مياه ومدنا نافذة هاي توقفونها هاي مقا سان تنقلي أو إستاغ مكان مسكوش أنا محاجون هاي أما قبل سنة مكاسات سرف تجيس بالسفر استا دولة أنا عايزة ورجع فبعدها كفر استايل هي كذا هاي كنت كان بيه باقي فيه فؤادية هاي ما كان هو شيء لما استأذن بشرب بيه قمية باقي وكشوا ساساو لبنان هاي والله هي المسلمين وحاك بريا يعصنا أنا وشيء جرجال أي في التراني أي في ديان واي هاي لقطة محلي اللي ممكن أكتر ما جيت محل وين لقطة كيسني اللي جيت هاي حدا في ملعب القصر تبدأ وفهم قصر عيد الله كان عيد الله قصر يحسبنا وجاي هذا أنا هقول قوانين كرنكا وحن قبضنا قصة بندقينا أبهيها علمها بحفيد كعلمها بالشدة حفيد المسارها حفيد دوميها برلمان كعلمها بالشدة قبلها برلمان حفيد كمدحوينها علمها بالشدة إني قبضنا قبضت Soomaaliyeed oo muddo 4 sano ah naafana ahayd lugtii ay naafada ka ahayd darajada kala wareegtay haddii ay gaarsiin karaan meel ay gabadhaas yarta ah looga habeeyo lugteeda ay gaarsiin karaan oo caafimaadkeeda dibadda ah loo qaadi karo waxaan ka codsanaynaa ururka haweenka qaranka haddaan nahay wasaaradda haweenka waxaan ka codsanaynaa inay gabadhaas Soomaaliyeed oo saa u dhiban muddo 4 sano ahna saa u dhibanay in loo gargaaro gudoomiyaha ururka naafadana wixii oo macnaha oo asagana uu soo gaarsiinayo ama ka codsanayo oo gabadhaas wax uga qabanayo أيضاً توصينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا كمان ولا شيء وأصاب وقنمات لما عرفوا رئيس الرباط كان يسوي سيبة قاعد إلهي كم هذا وفجي ونصور الجديد وحن هل كان وفينا محلها قدسي وربحنا وفينا حفيز كرئيس الوزراء arrimaha bulshada in badan loo ballan qaaday inuu naga caawinayo arrimaha waxaan rajaynaynaa in wax ka qaban doonaan walaashayna waxaan leeyahay ilaahay idinkiisa dadaalkan aan soo bixinay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan dayicin iyo
sawdo haddaan nahay haweenka qarankaba inaan codkaaga qaadno oon gudbino keliya hanti anaga meel nooma taalo laakiin dadaalkeena waxaa waaye inaan ku imaano inaan maxay ahaytaa riboodkaada gudbino dadaalkeena waana rajaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala fadiro oo arrintaan ay hagaagto taaba gasho ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa adoo caafimaad qabtid oo midkaada ku sootid wasiirada haweenka maxaa la baarlamaanka madaxweynaha mas-uuliyiinta dalka oo dhan waxaa leedahay qof kasta oo maaragtay marmada madaxweynaha oo waxaan ka codsanaynaa inay arrintaa wax nagala qabtaan waana rajaynaynaa inay markay soo gaaraan riboodkan inay wax ka qaban doonaan walaalkayna waa mahadsan godka tusi godka aragba gabar Soomaaliyeed oo godkaas agteeda ah meel kale aan loo qaadi karin oo dhibaatadaas ka haysato ayaan codsanaynaa oo maanta soo gaarnay in xafiiska ra'iisul wasaaraha arrimaha bulshada xaaladeeda si guud ahaaneed iyo si gudaha ahba inuu wax uga qabto wasiirada caafimaadka ayadana waa ku jirtaa dadka aan dalka u direen wabillahi tawfiiq